الرحمن الرحيم إلهي بقى محضله maanta halkan isku keenay dhamaanteen mahadda labaad waxa la madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo sodolkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo sodonka sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof wada af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lagu bukulay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalayna shirka waliina soo eegay waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inuu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiib ah la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xal ku gaaraan taas ay nasaaran qof waliba hadadaaro hadalkana runta hadii aan laga sheegin murug buu galaa run halla isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goosto ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hal rumay taas uu baa inaga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan la mid run wixii dhibaato aanu sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdaan u nimid idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hal wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddiga farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaan خاصة إن ما أنت واحد ولا سوى فرصة وحاول وين التلاوين جران ما أنت لسه أفكر كره إنه هالكي أفضل كل شيء كره أقول له وين كل شيء كرهنا أذك أنا وحالي هذا معي إلى حالي ما ناكل الصحة نطول قاضنا هالكي إنه كي قوينا إنه contribution إنه كتر شركة إنه بوليستو أولو بوليسنو آد بان صوتهم آد بان وهذا وحنوضنا ورب شركة يا أمد إن السوق سام حال بقولي سكرة أنت يمكن السوق ولا يشين كرة أنت ما أضق حال قاعد كرة مركا إذا كانوا واحد ردينا لم يدون باتين بيلة هاي تحل بعد سعر مات وحاول مدلوا لي سنة سد هل كانوا أنا إذا كانوا تسجلوا هل كانوا وظيفة فرنا إسرائيل إلهي إذا كي تلا ونكسر تلا صوبا هل كان نوع مالس كبر كيسرو في بدل بقوله جاره كانوا يتأثر قدر دارا أنا ما هتنتي shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab